14 saxiix ee ugu qaalisanaa ee la sameeyay sanadkii 2018 oo la soo saaray. Waxaa safka hore ku jira oo hogaaminaya xidiga caanka ah ee Mbembe. Da'yarka reer Faransa ayaa ku biiray kooxda PSG isaga oo kaga biiray kooxda sida weyn ee u xiltamaan ee Monaco, waxaana xidigan laga siistay lacag gaaraysa 135 milyan, waana midka ugu qaalisanaa sanadkii 2018. waxaa kaalinta labaad ku jira Philippe Coutinho. xidigan reer Brazil ayaa suuqii January ee sanadkii tagay 2018 bilowgiisii ugu biiray kooxda Barcelona lacag dhan 130 milyan. waxaa isna saddexaad ku jira xidiga reer Portugal ee Cristiano Ronaldo, isaga oo kaga tagay Real Madrid si lama filaan kuna biiray kooxda Juventus. waxa uu noqday xidigii ugu qaalisanaa taariikhda kooxda Juve, waxaana lagu iibsaday lacag dhan 112 milyan. kaalinta afaraad waxaa ku jira Alex Blanc. goolahayaha reer Spain ayaa kooxda Atletico Bilbao kaga biiray kooxda Chelsea, isagoo ah goolahayaha ugu qaalisan suuqii kala iibsiga 2018, isagoona lagu iibsaday 80 milyan. Van Dijk ayaa ku jira kaalinta shanaad. daafaca reer Holland ayaa dhankiisa noqday xidigii ugu qaalisanaa ee suuqa kala iibsiga sanadkii 2018 kadib markii 75 milyan uu kaga biiray kooxda Liverpool. kaalinta lixaad waxaa ku jira Ramos. xidiga reer Faransa ayaa kooxda Monaco kaga biiray Atletico Madrid kadib koobkii adduunka ee Ruushka lagu qabtay. Ramos ayaa lagu iibsaday lacag gaaraysa 70 milyan. kaalinta toddobaad waxaa ku jira Alisson Becker. Liverpool ayaa baanka u jibisay goolhayaha reer Brazil iyaga oo suuqii xagaaga kala soo baxay kooxda Roma. Alisson Becker isna waxaa lagu iibsaday lacag gaaraysa 66.8 milyan. kaalinta sideedaad waxaa ku jira Riyad Mahrez. xidigan reer Algeria ayaa noqday xidig Man City kadib markii muddo dheer oo ay daba socotay ay ugu dambeyn kula wareegtay lacag gaaraysa 60 milyan oo euro. Diego Costa ayaa kaalinta sagaalaad ku jira. xidigan reer Spain ayaa dhankiisa ka tagay kooxda Chelsea kuna biiray kooxdiisii hore ee Atletico Madrid lacag gaaraysa 60 milyan. kaalinta tobanaad waxaa ku jira Laporte. xidigan reer Faransa ayaa kooxda Man City kaga biiray kooxda Atletico Bilbao January suuqii xagaaga, isagoo lagu iibsaday 57 milyan. kaalinta 11aad waxaa ku jira Jorginho tagay Napoli 57 milyan lacag gaaraysa. Aubameyang ayaa kaalinta 12aad fadhiya. xidigan reer Gabon ayaa noqday xidigii ugu qaalisanaa taariikhda kooxda Arsenal kadib markii uu kaga soo biiray isagoona lagu iibsaday lacag gaaraysa 56 milyan. Naby Keita ayaa 13 ku jira. Liverpool ayaa sidoo kale baanka u jibisay xidigan caanka ah iyadoona ay ku soo iibsatay lacag gaaraysa 12 milyan. 12aad waxaa ku jira Fred. xidigan Manchester United ayaa markeeda xidigaha reer Brazil baanka u jibisay isla markaana kula soo wareegtay kana soo iibsatay kooxda Shakhtar Donetsk lacag gaaraysa 52 milyan. fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe si aad u hesho macluumaad fara badan oo quseeya ciyaaraha.